kadib markii uu geeriyooday eebba naxariistii jannaha ka waraabiya suldaankii hore ee beesha uu dubdhaxaadka u ahaa deegaanka Quljeed suldaan cilmi rooble fure ayaa haddaba coqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaas muddo 40 cisho oo ay fadhiyeen deegaanka Quljeed waxay isla garteen in uu bedeli doono suldaan cilmi rooble fure allaha u naxariistay wiil uu dhalay oo lagu magacaabo suldaan Axmed suldaan cilmi rooble isla mar ahaantaana ay shaaciyeen waqtiga la caleema saari doono suldaanka cusub iyadoo isku soo bixeen dadweyne aad u tiro badan oo dhammaan wajiyadooda ka muuqdeen farxad aad u tiro badan damaashaad sacab iyo gurmaankuna ay ahaayeen wargabi ahaanba harbeelay ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gandaha beeshaasi ayaa hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa anigoo ah cismaan kaamil abbakar ahna afhayeenka guddida guurtida ee reedul cismaan waxaan halkan ka shaacinayaa maanta go'aankii ay u fadhiyay guddidu muddo bil ah wixii natiijo ka soo baxday intaa kadib waxaan halkan ka sheegayaa maanta oo ay bishu tahay 17 bishii 9aad 2015 suldaankii haynu inta u fadhinay oo magaciisu yahay suldaan Axmed cilmi rooble bil ku dhow ayaan shir u fadhinay kaasoon ku lafaguraynay maadaama uu dhintay suldaankii beelweynta reer Dudub cismaan muddo 4 bilood ka hor waxaan ka baaraandegaynay oo ku lafaguraynay hogaankii cusbaa ee kaalintii suldaankii hore ka baxay buuxin lahaa ayaan muddo bil ku lafaguraynay kolkaan dhinac walba ka eegnay dhinac walba ka lafagurnay waxaan soo xulannay oon u xil saaray aanu soo xulannay suldaan Axmed cilmi rooble iyaal maantaan u magacawnay suldaan kisoo dhawow suldaan waxaan kuugu doorannay oo kuugu hambalyaynaynaa dadkaaga inaad wax u qabatid ilaahayna oo kula qabto wuu ka dambayn doonaa iminka waxa weeyaan waa muddo bila kadib ayaa la caleema saari doonaa suldaanka iyadoo meel walba looga iman doono iminka se waan shaacinaynaa inaan loo doortay suldaan caleema saarkiina u dambeeyo waxaa kaloon u sheegayaa dalka iyo dibaddaba dhammaan dadkaa suldaanka u yahay inay la shaqeeyaan oo si fiican u soo dhaweeyaan kana soo qayb galaan xafladda ugu dambeyn waxa isaguna halkaasi ka hadlay suldaanka cusub suldaan Axmed suldaan cilmi rooble fure oo ah isagu wiil aad u dhalinyaro ah kana mahad celiyay isu soo baxa iyo soo dhaweynta uu kala kulmay beesha uu ka soo jeedo ugu dambeyntiina halkaasi duco ballaaran ka soo jeediyay جزاك الله خير بان لنا جزاك الله خير بان لنا inkastoo qorraxdu kulushahay waqtigeena waqtigii xaafadaha dumarkii oo ay xaafadii qada qabsanayaan hadal badan iyo oran maayo khayr baan isku ognahay waan isku dambayn doonaa xafalda iyo damashaadkuna ilaahay khayr qabo inoogu qiimo doonaa idinkana maaragtay aad iyo qulub baynu ku salaamay keligay waxa ma qaban karo haddaad waxila qaban weyday keligay waxa ma qaban karo haddaad inigu gacmaha isaysataan waxaan ilaahay idinka bariyaa mar kale oo ka wanaagsan inaan isku iman doono ka farxad badan aad baad u baahsantihiin isku soo wada duub oo suldaan Axmed suldaan cilmi oo isagu ah wiil aad u dhalinyaro ah ayaa la filayaa inuu wax ka bedeli doono gabi ahaanba gobolka iyo degmada waa Jaamac Xuseen Jaamac Abdude Somaliland Space Channel